بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رمضان كريم. قلبتي ورصحافدات كان انت انكو قبانا هي ما انتو اي بش تهل بش اللواتيني سديد بش افراد يا ابريل لوكن لواتيني كو waxaan kaga hadlahayaa isbedeladii ama dhaqdhaqaaqyadii maalmahan ka socday magaalada Muqdisho marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan galabta halkan boogaadiyo una hambaliyeeyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Engineer محمد حسين روبلة iyo madaxweynayaasha galmudug iyo hirshabeelle mudane axmed qoorqoor iyo mudane cali guudlaawe war murtiyeedyadii shalay ay ka soo saareen magaalada muqdisho ee ku wajahnayd sidii Soomaaliya ay uga bixi lahayd cakirnaanta iyo muxuu ahaa qalalaasaha siyaasadeed ay uga bixi lahayd waxaan leeyahay hambaliyo waxay qaadeen aan is leeyahay wadadii loo baahnaa ee shacbiga Soomaalida uu ka sugahayay xilliga adkaa ee loo baahnaa hambaliyadaas iyo bogaadintaas aan rabaa inaan iraahdo halkan ka iraahdo qodobka kale aan rabo inaan ka hadlaa waxay tahay haddee xalay ra'iisul wasaaruhu injineer maxamed xuseen rooble waa tii maalmahan uu ka hadlay shaqaaqooyinkii ka jiray magaalada muqdisho iyo barakicii iyo qaxi ka dhacay iska horimaadkii ciidamada dawladda iyo kooxaha kale oo ka soo horjeeday arrintaas waxa weeye go-aankii laga gaaray wuxuu ahaa in dhammaan ciidamadu ay ku laabtaan goobahoodii ay ku laabtaan dalkana ay u adeegaan bulshada Soomaaliyeed si nabada iyadoo la ogsoon yahay dhibaatadii halkan ka dhacday iyo qalalaasihii meeshan labadii maalmood ka dhacay dadka Soomaaliyeed wixii ay u geysato ahayd ama danyarta Soomaaliyeed shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Muqdisho jooga barakicii iyo muxuu ahaa dhimashadii iyo muxuu ahaa burburkii hantiyeed iyo dhaawac ku soo gaaray waa la wada ogsoonaa arrintaas marka waxay salka ku haysay ciidamadu in ay ku ekaadaan ku laabtaan xeryahoodii ka laabtaan goobihii la isku dhaco ka yimid ay ku ekaadaan xeryahooda inay ku ekaadaan bay ahayd awaamirta ciidamada la siiyey waxaan adkeynayaa arrintaas anigoo xiganaya waxaan adkeynayaa arrintaas ayadaahi in shacbiga Soomaaliyeed loo turo inaan mar kale la gelin qax iyo barakac inaan la gelin iyadoo aanu ka digayno in dhaqdhaqaaqyo cusub oo hadda muuqda inay jiraan oo aan isleenahay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo hadda kadib yihi magaaladan Muqdisho dhexdeeda iyo dibaddeedaba ka imaanaya inaysan ahayn wax taageeraya nabadii xasiloonidii iyo baaqiyadii ay madaxda dhan soo jeediyeen arrintaasi xalay runtii ay soo jeediyeen madaxdaasi ra'iisul wasaaraha iyo labada madaxweyne waxaa taageeray madaxweynaha jamhuuriyadda taageeray mudane maxamed cabdullaahi farmaajo wuu taageeray marka ma aragno sabab
cid kale ay hadda ciidan loo abaabulana uma jeedno. waxaan arkaynaa marka inaan weli madaxdii mar haddii intaasoo dhani ay isku waafaqeen, waxaan ka digaynaa arrintaas iyadaa in laga digtoonaado, ciidamaduna ay ku ekaadaan madaxdoodii iyo awaamirta ay siisay inay ku ekaadaan, oo aan lagu laaban wixii aan isla ogeyn oo foosha xumaa ee magaaladan muqdisho dhexdeeda ku dhacay shacbiga soomaaliyeed iyo dadka muxuu ahaa aan iyadoo ramadaan ah iyo qax iyo barakac inaan loo celin dadka soomaaliyeed oo halkan magaaladan muqdisho ku dhaqan. qodobka kaloo aan ka hadlaya waxay tahay isla arrimaha asbuucan waxaad ogsooneydeen go-aankii shalay madaxdaa soo saareen kadib maantay waxaa la soo saaray oo aan maqlaynaa in baarlamaankii golaha shacabka maalinta sabtida loo yeeray oo madaxdoodu ay u yeertay. waxaan iyadana arrintaas iyadaahi aan rabdoonaynaa in anigu aan u arkahayo arrin inay tahay shaki laga qabi kara inay tahay, inay arrintaas baarlamaanku haddii ujeeddadu tahay in go-aamadii la qaatay soomaaliya madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedyadu dhammaantood iyo gobolka banaadir go-aankii la wada qaatay ee ahaa in dadka soomaaliyeed aado doorasho loo dhan yahay laguna laabto doorashadii hore maaragtay hakadka ku yimid in lagu laabto, hadday tahay wax carqaladaynaya. waxaan uga digayaa madaxda iyo walaalahayga xildhibaanadaaba inaysan arrintaa ku dhaqaaqin. haddii arrintaas ay timaadana hadda konsegosiga ay leedahay iyo dhibaatada ka timaada iyagaa qaadaya. arrintii hadda ka hor ay qaadeen 12 bishi ee ahayd kordhinta 2 sano kordhinteedana weeye waxa maanta dadna u dhintay, dadna u dhaawacan yahay, dadna u barakaceen, dadna ay uga maqan yihiin ilaa hadda guryahoodii. hadda arrintaas marka inaysan ku celin walaalahay guddoonka iyo golaha shacabka iyo shacabkuba golaha shacabkuba inaysan arrintaa ku celin. yacni haddii lagu celiyo oo arrintaasi waxyeelaynaya go-aamadii madaxda dalku wada qaadata oo dhan hadday timaado, haddii waxa weeye mas-uuliyaddeeda ciddii waxaas ka shaqaysay baa qaadanaysa. shacbiga soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeedna maaragtay ayagay jawaabtooda ayagaa siin doona. dee aada iyo aada umahadsan tihiin. saddexdaa qodob bay ahayd maaragtay kala duwan inaa idin idhaahdo afar wanaagsan. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. waxaa soo kordhiyay shirkankeeda inama soo dedejiyo dareenka golaha shacabka ka qabtay xilli dalka isbedel dhacay oo aana soo baxeen madaxweynuhu soo dhaweedo. waxaa tugmaysaan siyaasiyiintiinaan ee arrimaha mar haddii nala ka qaniinay go-aankii hore shacbiga soomaaliya laga qaniinay qaniya uga timi oo dhibaatada hadda aada ogeydeen ay ka dhalatay go-aankii hore, hadda walaalaheen waa u nasteexaynaynaa inaysan mar kale ku laaban. jidkaas waa jid xiran wey, wadda tii ay noqotay. waxaa weeyaan su-aasha kuweydiina waxay tahay maadaama aada ugu tiriya laguna xaqliyo dhinaca Rooble oo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya warar soo baxayana ay leeyihiin sabtiga baqdan waxaa jirta in prime minister Rooble qudhiisa in miiska la soo saaro. arrimahaas ayaa la leeyahay gulgulka qaybay ka tahay, marka taasoo qayb ka tahay waxyaabaha ka waa mahadsan tahay. anigu injineer Rooble weydiiye arrintaas, anigu
ra-iisul wasaarihii maayo anigu waa mahadsanta